waxyihii jasiiriyo sidii weriyihii soona ama niman wareegoo arliga camalka wiideeya ama qolo wadaadiyo tabliiq aan wacdiga joojin anna waanadiyo gabayadan idin waraabshaaye haddiise aan wax lagu qaadanino la iska weydaarto webi ooman lama buuxiyiyo bohoshi waaheene qof kastoo wanaaggiinna rabay waan wahsanayaaye dadkaasee waaxidkiyo wadarta badan labada kii assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulanti wacan daawadayaal mar kale kuna soo dhowaada barnaamijkeena wacyi barnaamijka wacyi waxa uu idinkaga imaanayaa stuudiyaha telefishinka Somali Channel uu ku leeyahay magaalada Minneapolis maantana waxaanu ku faraxsanahay barnaamijka inuu marti inoogu yahay Sheekh Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xaaji Dabcasar waa imaamka Masjidul Qur'aani was Sunnah ee gobolka Ohio ومجالة كولومبوس شيخ عبد الرحمن انت أصبح أصي دير إنه هذا كهر إسو شرحي جادا مدحوين لماذا يدلك الصوماليا أنا داوني إن بدن دبيتكي يترتنكي يقوله سياسات هانك سياسات مركب وكتشري ونا برنامج كاس وشرحنا إنه مدحوينها دلك الصوماليا النقطة سؤال الدورة أيان نكوي الدين إن سياسة الصوماليا ماشي أي مرة يسوع هانكي سياسات إنه ولي كتشرو إنه كبحي iyo arrimo kale oo badan oo noocaas ah sidoo kale waxaynu ku weydiin doonaa barnaamijka intuu socdo dhexdiisa waxaynu ku weydiin doonaa hadda dagaalada ka socda Soomaaliya al-shabaab la heshiintooda xal ma ku jirtaa dawladda iyo waxyaalo badan oo noocaas ah barnaamijka inuu martina uu yahay sheekh oo ku faraxsanahay ku soo dhawo sheekh maasantay wariyaha qaliga Somali Channel-na waa mahadsan yihiin hawsha fiican ay u qabanayaan dalkooda diintoodana waa ku mahadsan yihiin mahadsanid ugu horeyntii Sheekh Cabdiraxmaan waxaad safar ku joogtaa magaalada Minneapolis waxaad ka imaatay gobolka Ohio iyo masaajidkii aad imaamka ahayd marka safarkaaga aad ku soo gaadhay magaaladan Minneapolis bal inaaga waran si kooban bismillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam walaalahayga dunida dacalada jooga meel kasta aad joogtaan waad salaamantihiin si gaar ah waxaan u salaamayaa macallimiintaydii waalidiintaydii iyo cid kasta oo ka soo qayb qaadatay barbaarintayda iyo waxbarashadaydiiba waa mahadsantiin si gaar ah ummadda Soomaaliyeed meel shanta qaarada ay joogtaba walaal sababta aan u meeshtan waxa weeyaan waxaan u maleynayaa magaalada in la iga bixiyay walaaleey yani inaan walaaleeyo oo ka qayb qaato walaaleynta iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed hadday noqon lahayd jaaliyadda Columbus jaaliyadda halkaan iyo jaaliyadaha يعني حنونك هايستا يدبك هايستا سيدي لو غاري لها حل لو ميدوبي لها وحلا ودا قبسن لها لا سعاون لها هوeenka caruuraha diinteeni aanu badbaadsan lahayn dhaqankeeni hidaheeni taas oo aan ka bilownay meeshii ka bilaabay Nabiga Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam markuu ka haajiray Makka una tagayna Madiina sad garanaysid masjid buu aasasay dadkiina waa walaalayay yani halkaas joogay ساسو كله ولا النمدي إنه سوء لنا إنما المؤمنون إخوة صلقنا وحاول بالشدة ومساجدك مرك إن مساجد يدي أي ولا لبان أي جماعة قبصدان أي سي وحوده قبصنا لها يعني مدول باهدي يحنون كسنة لو قال لها أو يعني الاسميال كان العجها غالي فرها بدل نقول لي هي سوى تشير الله بحين لها تاسع ومن سنيد إلى هنا وأنا أقبل سبحانه وتعالى صدرتين مساجد مدوبي إلى هذا طول مسجد أي مريان جزاك الله خير marka masaajidaas midoobay ilaa 10 masaajid maraya laftirkooda sababta ay ku midoobeen iyo waxyaalaha ay rabaan inay qabtaan faafahin dheer ama naga siin kartaa سادة وتهيبا من مدى ولا اللي وحي الله سبحانه وتعالى وضدك مسلمين تأوفري واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أمرنا الله بالإجماع ونهانا عن الفرقة إلهي وحنا فريئنا مذيونا وحنا نودي دي كلا تقى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون مرك إلهي إنه ما أقرأ إنا كلا تقنو أو كوحائي أرور رأي إنا نقولنا إلهي وإن نودي دي إنا إنه هل أرور نقولنا إنا طبعا أرور نقول بإلهي سبحانه وتعالى أربا إنا إنه هل كوح نقولنا إنا كوح far badan noqono ayuu Ilaahay rabaa marka ujeedada aynu waxa ahayd walaal tobankaas masaajid waa midownay alxamdulillahi rabbil alamin waxa ku midownay waxa weeyaan xaqqa ku midowna kitaabka Ilaahay sunnada ala fahmi saxaabada rasul fahmki asxaabteeni yani wa taawanu ala albirri wat taqwa laskaalmaysto gartay marka tobanka masaajid ee midowday markii hore waxay ahaayeen 9 masaajid dabcan mid baa gadaal hadda uga soo beeray 8 kamid ah waxay ahaayeen gobolkan Minnesota
adiga kaliya oo ka socdo masaajidkaasna ama masaajidka imaam alqur'aan wa sunna baa ku jiray oo haya marka waxa la isweydiin karaa maadaama aad la midoobayso masaajid walaalaha ah oo ku yaala Minnesota ma jiraan miyaa masaajid oo haya ku taalo la walaaloobi kartay oo la مثلا كتلدينا كميد دقي كرتين ولا لا ومحسن تحي وحنقلوا كفر حسن هي نبراسكا أما مقالة أومها مسجد كيالا سوون إنه كصبيري وحاجة المساجد أيون حد حق جوجا أما مساجد هل كان جوجا ودون أيون إنه كصبيران سألته هي تحسنا ويجرتا ومقالة مساجد ذي كتير مساجد أيوة كل ضيانا يا مدة أي واحد بلعب إنه حد أيون أي مرتي أي واحد قبس أي شان سلوا كل مقالة سيارة واشنطن وعن جوجا 2000 كي وعن كميدها رقم مساجد كأساسي iyaguna waxay bilaabeen inay ay wax wada qabsigii waa gaartay marka tusaale fiican bay yani kulankanagii suumaadkanagii bay u noqotay yani wax lagu dada ama yani meel kasta wada joogo inay dhahaan war jahwareerka iyo khilaafka aynu ka baxno ku midowna xaqa kitaabka ilaahay sunnada rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam gartay Sheikh Abdirahmaan waxaad kaloo aad caan ku tahay inaad siyaasadda dhinaceeda naqdiso ka hadasho waxaana lagu yaqaanaa hadda ka hor inaad isu sharaxday jagada madaxweynenimada ee dalka Soomaaliya wataad Minneapolis nooga timaado debatekaagii sida uu aan loo daawaday maxaa kugu dhaliyay adoo imaam masaajidka ah macallin dadka diintii bara inaad isu sharaxdo jagada madaxweynenimada ee dalka Soomaaliya walaal waad mahadsan tahay siyaasaddu horta caalamkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa abuurtay asagana iska leh wuxuuna ugu talagalay Ilaahay subhanahu wa ta'ala in dadka mu'miniinta ee saalixiinta ay hogaamiyaan ba Ilaahay ugu talay subhanahu wa ta'ala saad ogtahay bani Israa'iil kaanat tasusuhum al-anbiya nabiyalka ayaa xukumi jiray oo maamuli jiray boqortooyo iyo mulki iyo salax Ilaahay fasaad kama raba adduunka wuxuu ka rabaa wanaag buu ka rabaa systemka ugu talagalay buu ka rabaa haddana waxay halkaas ku noqdo anigu waxaan kamid ahaa raggii wax ku soo bartay jaamacadda qaranka ummadda Soomaaliyeed oo maanta qarankeena aynu laanahay la foole ayaan anigu ka soo baxay macallinimo la soo tababaray education free ayaan haystay tacliin baan haystay waxaan ka soo major in agriculture beerahan ayaan ahaa يعني iyo biology oo minor iyaha marka طبعا waxa u soo bartay wuxuu ahaa dalkayga iyo diintayda iyo dadkayga ayay ahayd طبعا يعني وانا ka danqanaya waxa dhibkayga ka jira oo wax dhaama hadaan waayo war kuwa joogow war rag iska dhiga oo daacad noqda oo dalkiina hogaamiya oo Ilaahay baa mas'uuliyadda idin dhibay hogaansha hadina hogaamin karin yani kursi jacayliga ma aha laakiin waxa iga tahay danqashaan dadkayga u dhaqanayo marka waxa tiri tusaale u soo qaadatay in ambiyadu dadka hogaamin jirtay ma waxaad aaminsan tahay مثلا wadaadadu inay jagada madaxweynenimada iyo dalka hogaankiisa leeyihiin oo aan leeyahay مثلا siyaasiyiinta aan wadaadada ahayn ayagu xaq ba uma leh inay dadka maamulaan kuwa diinta yaqaana xaq u leh inay dadka maamulaan saas miyaa leedahay wala laga cali إلهي سبحانه وتعالى بهرت بقرطوية بحية والله يؤتي ملكه من يشاء إلهي بهرت بحية قفك الدونون السياق قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء كادون تنواسي ساكاد دون واقع قادام لكن وحان ماشت على وحويان أهل الخير كي صلاح أهل الفساد والشر اسكمد معه قف إلهي حق السنة يقانا حق الشعب كسي أمد سي يقانا اسكمد معه مركا انتهاس هو مهم طبعا ده سومالي وحيكون ماجر وداد يعني ودي المودي جري وداد يعني انه وحبا هنا ولا اسكي وداد وانين لبها وين اي وداد بس سو نقطه وروح شغال سب جرت وداد wax kasto raba runta idin sheegayda inuu hogaanka qabto raba يعني هوينك جعلنا نعم هوينك وجعلنا نبي محمد بجعلها حبب إلي من دنياكم ثلاث النساء والطيب هوينك وجعلنا هاي هوينك وجعلنا هاي وحقبتك وجعلنا هاي لكن دعاد بن وداد حمنا من قرينا وداد حن أو لجوي أو شني أو قلب سن أو يعني سمعة الدرجة ذلك يدك يدين تأكلينا ما نقرينا لكن تدخل كملنا لكن يوروبي أمريكا يعني غربي شرقي إن ما ارتشابنا لكل شيء لكن Sheikh Abdirahmaan kuwa wadaadada naqdiye waxay leeyihiin hogaankii wadaadada loo dhiibay oo dhan in badan oo kamid ah sida maxkamadihiiba kamid waxyaalo badan oo noocaas oo lagu tajribeeyay ama ay ayagu hogaankii qaateen way ku fashileen subcadarayna u soo jiideen hogaankii iyo arrimihii marka dadka noocaas oo wadaadada naqdiye waxay soo saarayaan in wadaadadu laftirkooda aynan gaarin heerkii ay dadka ku hogaamin lahaayeen maanta
waxayna leeyihiin wadaadadu waxay iska nastaan masaajidda ku ekaalaan kuwaas maxaa ugu jawaabi lahayd walaal wadaadkana waa ka hadlaya masaajidkana waa ka hadlaya masaajidkan ka hormaraya horta masaajidku ma ahayn meel arbacada lagu aruuriyo ma ahayn oo islaamaha lagu meeriyo ma ahaan jirin sida maanta dad badan ay moodayaan masaajidku waa meeshii nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam saldhigiisa ahayd oo yani calanka islaamka uu ka taagnaa oo yani golaha shuradu ay joogeen oo wasaaradda caafimaadku ahayd oo maaliyaddu ahayd oo gaashaandhigga ahayd oo ciidamadu ay ka bixi jireen oo haddii ay ku idmaayo yani masaakiinta iyo fuqarada iyo welfare systemku ay lagu qaban jiray weeyaan oo baahida iyo midka jiran iyo midka lagu ogaan jiray weeyaan laakiin markii masaajidka dowrkiisa uu lumay ayaa umadiina ay luntay waana mid aan doonayno oo keentay inaynu hadda aynu noolno masjidkii iyo dowrkiisa midda wadaadka ay badan u soo noqon walaalayaal dhibaatooyin badan ayaa wadaadka soo food saaraya daakhili iyo khaarijiba horta rag waa jirta dabcan oo wadaad kasta ceeb ka salin ma aha yani wadaadkii waxa laga yaabaa in minkum yuriidu dunya wa minkum yuriidu al-aakhira waa jirtaa yani dunuub ay galayaan waa jiraysa asxaabtii nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam ahzaab oo kale way jabeen maxay ku jabeen xunayn ma kaaga wada waa yawma hunaynin idha ajabatkum kathratukum markii ikhlaas iyo daacadnimo laga waayo wadaadka oo isla weynan iyo kibir iyo adduunyo iyo xaqaraad iyo xaqi uu ka leexdo wuu jabaya wana baaba'aya waxaa jirta yani acdaa fara badan oo khaariji oo aan ogolayn wadaadka lixdii bilood maxkamadahaas iyo wanaagii horumarkii nabadii la gaaro waa xasuustaa laakiin durbo waa lagu kacay waxaa la adeegsaday ayagii baa la qaybiyey xisbiyo iyo kooxo loo qaybshay la isku daray darb al-islami bil-islam in islaamka lagu garaaco ayay laftoodii factions iyo kooxo laga dhigay isgaraaceen iyo haddii laakiin ma divide and conquer qaybi oo xukun yani lacag fara badan meeshii la geliyey odayaashii wixii iyo dadkii kala taageersan ayagii la iska horkeeno qaarkood aynu aragnay haddii la ku idmaayo in ay ku xirnaayeen chip ama haddii la ku telefoonno caalami ay ku xirnaayeen oo diyaarad ay ka raaceen caruurtii laga soo dhacsay jihaad iyo ay ilaahay darti u dhinteen oo yani ayagiina maartay haddii la ku idmaayo ay diyaarad ka raaceen oo maartay hoteello caalami iyo halkaas la geeyey wala socota walaal dabcan waa taas batay u leeyihiin marka wadaadadu ma qaangaarini ha isa soo dhisaan horta marka taas haday sheegeen ma ku saxsan yihiin xaqiiqatan horta hore nimankan Soomaaliya waxay ku maamaadaa sir gaalo iyo indha quraan jamina na arko nimankan gaalada ahi waa daraasayaan baxthi bay sameeyaan daraasaad bay sameeyaan qof walba waa daraasaynayaan koox walba waa daraasaynayaan dariiqa iyo meesha ay naga soo geeyaan makriga iyo shaqoolka ay ku jiraan ilaahina waa noo sheegay yamkuru Allahu khayrul maakirin nacam yani waa inaynu khaladkana garanaa waan khaldanay waxa naga khaldanay diyaar baan nahay inaynu saxno hadda ka hor 1989 madaxweynihii dalka xukumayay ee Siyaad Barre dadkii ku kacay mucaaradka ku noqdaad kamid ahayd waxaad arrimo badan baad kala hadashay adoo waliba ku kacay arintaasna waxaad qaratay xataa hadaad xasuusato debate-kii halkan aad ku gali jirtay dooda madaxweynimo aad u sharxaysay hogaankii dalkii dhisnaa maxaad ugu kacday walaal waa su'aal fiican aad iyo aadna u fiican horta ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryayaa inuu u naxariisto Muhammad Siyaad Barre ilaahu janno iyo naxariisi anigu kama hor imaan xaqiiqdan aqoonna uma lahayn haddii aan garanayo in yani saas uu yahayne xaqiiqdii saas ma aan noqdeen waxa anigu macallin baan ka ahaa dugsiga Muuse Galaal anigu la foole ayaan Muuse Galaal macallin ka ahaa Cismaan Gadiraaga macallin baan ka ahaa iskuulo kale waa tagi jiray yani halkaas waxaan ka bilaabay dacwaan ka bilaabay in aan akhlaaqdii islaamka iyo arkaanul islaam arkaanul iimaan gabadha muslimadda xaq ilaahay ku leeyahay xijaabki marka gabdhii waxay bilaabeen ay khimaar yar ay saartaan madaxa walaalle waxay qabaan surwaal iyo shaati ogow marka gabdhii iyo wiilashii ayaan kala saaray markaas yani wasaaradii waxbarashada oo xaqiiqdii wasiir uu joogay oo xoogaa maartay alcoholic ah markaas ayaa bahasha inta soo caba iskuulada taga ay wuxuu dhigi jiray gabdhaha gambada asturtay in laga saaro fasalka in la ciqaabo in la caydo markii dambena wareegta ayuu soo saaray marka anigu dabcan isma lahayn madaxweynaha ka hor imaw waxaan islahayn wasaaradda waxbarashada inaynu u dacwoono dabcan markaynu ka soo baxno Muuse Galaal baar wax marayno halkaas aynu arimarano jidka sodonka ka soo dhaweynaa ayaa qolyihii mucaaradka ee magaalada joogay ay nagu soo bireen oo ay qarbudaad ay bilaabeen anagu waxaas uma naasicun nagama ahayn xukunka Maxamed Siyaad Barre ama dawladda jirtay markaas inaynu ridno jira maafiya ayaan galnay algaabta ayaan marnay aqalkooyinka ayaan marnay wasaaradda waxbarashada ayaan tagnay aan wasiirka kula kulanay saacadul wasiir dawladda iyo dalkanaga iyo madaxdana waa jecelnahay xaq baana ku leenahay xaq baana ugu leeyihiin laakiin la taa'ata li makhluuqin fi ma'siyati al-khaliq inta Allah subhanahu wa ta'ala aasino maartay gabdhaha masaakiinta dalkii oo dhan dagaal ba ka socda gobolada dhexe yani waxa soo qabsaday mucaaradkii hadii la gudmaayo Siinaa iyo halkaas waxa lagu gadaa hubkii yani militariga iyo ciidamada qalabkiisa ayaa lagu gaday askartiiba hubkooda gadanaysa marka walaal anu madaxda ku hadda jooga iyo kuwii horaba
يعني واحد آمن سنة إن الله هو إيمان وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلاة تقول إلهي باجري مدحنا الدعاء إلهي باجري إمام أحمد يقول لي هدان قف أدعينا إمامك أما قائدك دلك حكم أيان أدعين لها محايا لها دوها هذا منك وقاميها أمد أنت ذكرنا ويفعنان ساعة marka kuwa haddana waan u ducaynayaa kuwii sabreen waan u ducaynayaa wixii ka qaldamayna Allah usxo asagana hadii ay ku idmaayo waan u ducaynayaa marka la kulmay tabcan eraygu uu weydiiyay waxa kamid ah wuxuu yiri Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun Ilaahay baa quraanka soo dejiyay iyo adiga ku Muhammad Sayyid Barra marka isma dhin Muhammad Sayyid Barra quraan yaqaana ama wax garanaya ama diin wax yaqaan sidaan waan aaminsanahay ka bacdi ayad kale ku daray uu leeyahay al-fitnatu ashaddu min al-qatl marka xadiis baa la soo orday dhaif al-fitnatu na'imatun la'ana Allah man ayqadha fitnadu waa rudaa yani kuwa ka kiciya naclada ku dhaca nimankan wasiirada ku iska qabo abees dhulkii isku dilin jala idinka iga daran biir wadaadku ku طبعا بمعنى waxaan u fahmay nimanka kursi inay xoogaan ee aan u jeedin xal طبعا madaxdeena waa diyaar taan u aaminsanahay waana u ducaynaa waana rajaynaa madaxda inay maqlayaan حقنا أي قادم دون دين ولا جين وجس لكن ولاد والبس محمد سياد برا مركز مدحوينها ومتجي كرين لينك أنا أوتك طيب سياد كوهش ما من نوع قرابة ما جرتي ولا طبعا محمد سياد برا وقرابضي وأهلك آدم سولونها يسحقنوا وضلنا سكدان كان نمد طبعا مركي دبكو دعي أنا صبحي أيان قاري الله يقول فقطي هالكاسي قبل هذا الحين تجي dhulkan Soomaaliyeed la qaybsaday kilinka hadda loo yaqaano wardheer iyo meelahaas meel ku dhow aniga tabcan awgay wardheer buu ku dhashay reer berberaan ahayna awgay daraawish awgay kala ahaa ragii generaaladii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo markuu dhintay sayidku u ilmeynayay ayuu kamid ahaa halkaas aan tagay cafiskii marka jabhadihii dawladda ka horjeeday ee ugu dambeeyay SNM iyo SDF baan soo galay maxaan kula kulmay tabcan madaxtooyada yani faa'iidana waa ka dheefay faa'iidana way ka dheefay oo ah culimada yaan lagu dirin yaa laga horkeenin waa u nasiixiyay يعني وإيه قاطي عبد الرشيد على سوفي مركز يعني حبس أي كتير ولا سوداي ولله الحمد إلهي بنا ما هتسكله وأنا أقول نصيحي أصور مركو أركينا هنو الدنيا وذلك سجعلي عن كور جدين وحير مدبدا نقول درامس درك هقعد وشقيني سا طبعا درك يا مشقيني يا بايني مركز وزارة الرماية جودها أي فيلم كذي لا يوريشي أو تريري لا يفري مركز طبعا واحد من قياسي برايم مينستر درك هنا كانوا يوريشي لا أي قياسي لكن إلهي قدرة السماشي أفق أي نقطة إلهي أقول حريستون حريص هسي واحد بينه مركز دعوة وحكوه ليميا قرقرتن تجاوز عطتين واجرتي ولا ما عطسن لكن أمير المؤمنين أو أنك دولة حكومة هدي وكو أركانين وحتر أو دلكيسي رياضي يروح كمية وحتر أذكر بعضها لكن ماشي للربيع ضد كاي كمان نقول لك الدولة هذه هكورمان كاري وهو حرقنا هي ربي وحصابرت أو education لا فلو إيمان شري أنت أي بريس كان دمين شري طبعا أنا عبينه دمين شري دام إلا مدة مركز كش قيسي هولهاس أنا وحبلا كور قبته إنك استودتك قاعد إلا هذا يكون قليلان إن الدولة بربرنتي وحكوا جيد إن أركتي هذا سياسة حتى كأدن سياسيين هذا ما نتجرو هذا الشيخ عبد الرحمن إمامكم مساجد كه بل ناقورهم والله ولا لو أرت سياسة ده سياسة ما أنت يعني أرجع ما بيقنع السياسة شرعية سياسة الشرعية سياسة التنظيم الوطني سياسة الإله الوجود وانيو سياسة سوى مدة الوحرين هي الله وحرين هي ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد الدوام هذا إلى قصار الدوام إنه كجيرانه الدولي نبى كجيرانه فقر كجيرانه عير نبى كجيرانه أو الدنيا العالم كو أبى تغيير هيانه ولا سك دلها ولا سك نعيه ولا سك قيب سنة ولا سك درها ولا كلا قيبنا هيو خيرات كذي اللي بوبها طبعا تاس إنه ديدو عدالة من دور عدالة الإسلام كي ولات النمطي وحول قبسي في عالم كان أخي في الله النبي الله محمد إلهي الصدر سابوها قبلها وعاسجرين حقوق هوانكم الحين هذه لا يكون ما هي سد أكتها يعني قبائل يعني بربر باجري يعني قبيلين كوين بس يعني كوين يرك أدو سنجري أو عمجري أو بوبجري أو بالقي سنجري عرفت حلقة صراحة هاينا سوبر باورس أدوك مركا كجرتي بيرشينسكي رومانسكي أو قلبيد يبري وحبا ما هين لكن مركي لا يسترمي يعابدوا جرين لا يحيى عابدوا جرين مركا سفريان وحي هاين أفضل حبي قادن جرين سدح دربي سارن جرين من لو عابدوا جرين لكن نبي محمد الله مركو صادر أفرس عالم يعني السب دري مركا وحن لا يهي
cadaaladu waxay ku jirtaa islaamka walaalnimadu waxay ku jirtaa islaamka xalkeenu waxa weeyaan waa laa ilaaha illa allah muhammadu rasuulullah marka siyaasiyiinta maanta ka waran xukuumadda walaalo waa maanta siyaasi kuwii khadka ka dhacay oo halkan xaasaskoodii iyo caruurtoodii inta ka cararay oo welfare ka qaadanayay oo dowladaha reer galbeedku xataa kuwa laysinkooda ay kansaleen baa dastuurka anaga noo qoraya oo dowladihii gaalada ahba ay ka kansaleen yani dambiye ay galeen awgeed marka ninkii fiican daacad ah aan kolay aan wadan dadka maatada xoolaha loogu talagalay iyo wixii loogu dhiibo inuu cuno in alladina yaakuluna amwaal al-yatama dhulman inma yaakuluna fi butunihim naaran xoolo agoomeed iyo masaakiin iyo cayr iyo kiishashkii bariiska inta ka shubo kiishka la ku shubo waxaas xildhibaan inta maaragtay lacag isticmaalaya iyo madaxweyne maaragtay lacag wax ku kala furdaaminaya war waxaas wax ma tarayso waxaa la rabaa daacadnimo wax ilaahay loogu dhawaado subxaanahu wa tacaala ummadda tan bari iyo galbeedba aniga dabcan dadka aan ka hadlayo waa greater Somalia أنا متأثر أمسناهم سوماليين جيبوتي إلى يعني هري هواش إلى أرسل سل كذا إلى نيروبي سل كذا إلى هذه لا يكون ما يو حيوان بري تأثر أمسنا أنا قبيل كمان الله يكح هذه لا يكون ما يو وحس كمان الله سوماليا بأسكله إلى إذا كسوانا مدوبنا إلى هيلس marka siyaasiyiinta hadda xukumo dalka waxaad leedahay kuwii saxda ahaa ee loogu talagalay ama laga rabay inay xukumaan maaha walaalow kulligood ma dhigi karna dabcan waa jiraan kuwo fara badan oo fiican oo caqli leh oo karti leh oo wax qaban kara ummadooda iyo dalkooda daacadna waa waxa socday si socdaan aan raalli ka ahayn iyo kuwo badan oo ka amar qaatay Nicholas Kay iyo hadii la kidma IGAD Amazon United Nations ka oo maaragtay lacag soo qaata si ay u sii burburiyaan oo halaajiyaan ummadooda marka kuwii daacadana waa la caburiya hadii la kidmay idaacadaha kama hadlaan raadiyaha kama hadlaan طبعا anoo kale yani wadaad oo dhan hadii la kidma qabta hadii la kidma dila hadii wadaad baan dalkana waa jecelnahay ka waran marka dhinaca dadka ka soo horjeedo xataa xogaagii nabadaha ay isku dayay iyo dhalinyarada طبعا waxa wada al-shabaab hadii la gudmay laakiin al-shabaab maxay goormay asaasmeen soo asaasmeen maxay doonayaan maxay jecel yihiin saad ogtahay ba caalam al-islaami wala le kooxaha jamaacatu ma aan dhaana waa takfiir waa waxaan aan ayno xaqiiqadu waxay tahay horta jamaacatu rijal wa takfiir waxa asaasay hadii la gudmay jamaacatu suyuud dalka Masar ka aan jiray professor ayaa asaasay oo dawladda xirtay cadaabtay koronto isticmaashay markuu soo baxay inuu dawladdu waa gaalo cid kasta dawladda la shaqeysan waqf manhajkii waa faaf al-shabaab iyo wadaadada hub qaata waxay soo baxeen xilligii wadaadada inta lagu rido jawaanka la geeyay jiray caasimadaha dawladda dariska nala ah ninka wadaniga la qaaday odaga la tooganayay generaalka la qaaday oo nin kasto dalkan u dhaqdhaqaaqay inta jawaan lagu rido la qaaday xilligaas soo baxeen laakiin waxa la aaminsan yahay al-shabaab xataa maxkamadii inay kasii dambeeyeen kuwa waqtiga soo baxan ayagu aan ahayn طبعا way jirtaa laakiin muaskaraadku way jiraan oo wadaadadan aaminsan in dawlad dalkooda ay qabtaan waa jireen talamba araare dagaalkii dawladda waa galaan sida ogtahay yani gobolka Gedo hadii la ku idmaayo gobolada bari hadii la ku idmaayo magaalada Muqdisho marka wadaadadii kuwa isku xiraysaa miya kuwaas ilaa hadda kuwaan wadaadada طبعا يعني hadaan tusaale ku soo qaato xal bay rabaan waxay rabaan wanaag bay rabaan مثلا Puntland على حاجي هذه لا كنت ما هي وذاتك على ترتمي قاس يفرله يعني وحو كميد رقي عبد الله يوسف كسر جدي مركز oo ka xambaarsanaa طبعا maanta yani asaba ku sigtay inuu ku guuleysto yani wadaadka ama aniga ama asaga ama nin kale waxa rabna bartolka naga iskalna kama xigo wanaag baan rabnaa waxbaan maqlaynaa waxna waa dhageysanayna laakiin hadda cali xaaji kuma jiro kooxahaas la sheegayo waana wasiir waxaasna inuu ka mid xibanayaha muuqato intaan ka tagno al-shabaab specifically maxay doonayaan al-shabaab aniga waxay doonayaan lagama xigo aniguna lagama xigo maxay rabaan nusratul islam shariica islaamiga lagu dhaqmo waxay rabaan dastuur islaamiga saad u jeedidba al-shabaab kaliya ma rag badan oo wadaniyiin ayaa jirta meeshan ciidamada lagu soo daabulaya tuulo goboleedyo madaxweyne loo sameeynayo waxa la sameeynaya madaxweyne goboleedyo la sameeynaya waxa la sameeynaya hadii la ku idmay mid walba goora loo xukumaa lama ogola ciidan qaran la ogolyahay in la dhiso ma jirto dad badan oo ka xanaaqsan ayaa jira marka xataa al-shabaab aan ahayn oo ka horjeeda fargelinta shisheeyaha ama reer galbeedka ama reer bariga ama dawladaha dariska badii baa la boobaya barcadbeed baa la ku sheegay in lama ogola inaan xukumo ciidan qalab sida lama ogola marka al-shabaab waa wiilasheenii وانا دولتنا الى دغال كلي اي ترى ما حل سياسي ولا غاري كره لكن halka waxa taagan amisom yara galbeed iyo wixii lamada ku shaqeysanay oo ara gureyn in la heshiyo
waagii aw tartamaysay madaxweynenimada waxaad tiri al-shabaab ama dhalinyarada waxa dagaalka wado dhan waa la heshiinaya dad badan baa kugu taageeray dad badan way kugu khilaafeen qayb kamida hadaa maanta adiga ahaan lahayd madaxweynaha Soomaaliya oo ku guuleysan lahayd al-shabaabna sida maanta ay yihiin ay ahaan lahaayeen si ay ula dhaqmi lahayd walaal al-shabaab saad ogtahayba oo wiilasheen hebel baan u naqaana ina gudana waan naqaana oo Mansuur waan naqaana Ali Dheere waan naqaana hadii la kudmahay waa la yaqaan hadii la kudmahay Abu Abdullah ina Shanguule waan naqaana hadii la kudmahay Fiilo waan naqaana baraqo waan naqaana gobolka jooga yaani mid hadii la kudmahay gobolada dhex ka jooga kulligood waan naqaana wiilasheen maadaama ay taqaanid madaxweynaha hada ahaan lahayd si ay ula dhaqmi lahayd da waxaan dhigaa walaalayaal maxaad u baahantiin maxaad xusaleysaan maxaad rabtaan laakiin lama dhageysanayba وروحها صار ربع لما بدأ يستنى يبقى إلى هنا وحو أمانة الذين يستمعون القول دولة المرايكة قاعدين يقول ولا ناي اللي بانو جراوند زيرو سكس لعب قوة مسلمين أخذ متى مسلمين تهكا السراد وجامل السوق كل شيء أيانها يعني دولة المرايكة في إيميل والبحر ورتلك المسلمين تاه هرمر يبرواقع يدين كنا أرجع سنة معها نبنا يدينكم هيان وانا جينا البحر ما يهدل يكود ما أو حسوسيه حداد قشيد هدر ترى هدل يكود ما congressoflibrary.org library مريكان كأمور الكونغرس في اللي كستا وحيا الله كتب الإسلام كله عليه أو أنه إنه كفاية هدينا لنا قانونك هدينا علم العافماتك هدينا بضع يمرينسك هدينا يدي إسبيسك يحديسك هذا ما تكستا طبعا لو بغلا صار كتب أي سوقات تبع أطالة مركب حوالي على الشباب وليش نويان أي نفر يصنم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إلهي باين هلا يشيو ما هي الشباب إلهي باين تكده هشينا يري مركب على الشباب قرانكم ما قبت مياه دولة قرانكم ما قبت مياه وحان ميش قولين الله كعبس من قولين إلهي يعيري الله كعبس صدا وهشيه وأصلحوا ذات بينكم ما هي والصلح خير this is better نبدأ أيامنا كتشرتها إنك أنا وحال لا يدك مركب ويستاجر هوشاس أهيد reconciliation يدبوشين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صلاح بين الناس وحكى جرته عندما الأمن قاعد يحلم متغير قلب ما أقرأ إلا الشيء صارت هذا الشيء مش كده بعد ما نية شو كده بعد ما نيسا مركب إلا القبائل كلها كلا فوقيه قبائل كلها فوقيه دموي كلها فوقيه نيكولاس كاي وحاله والله دولة لا ما أقرأ العقل ما أقرأ الميليتير لا ما أقرأ قلب ما أقرأ قبل ما يكف سنة يعني هذه لا كنت ما إسبتالك عيدس كمان عينه ما له تلسه يا قبل حكف سنة يا ما دام سنة كف سنة فيزيون أي ترى يعني أن الأبي والله تشيله بس كده الله قيبني هذه لا كنت قاعد تعجبت يعني التجويع قاعده مركا واحد لا شيخ عبد الرحمن الشباب لما دقيسته وحين أهيد إن لا دقيسته للهشيم نعم الشباب مريكان كانوا عليه القاعدة الزواهرية اللي يشينه هذه لا كود مايو الدنيا نيوكلير بام كذا هذه لا كود هوب كذا تكنولوجي كذا كانت كويس أي دالي أو دقالي سلك وقال هذه لا كود مايو دقالك في فيتنام سألوك تهيبا وحكحون أو كخطر سن دقالك هيت أن رن أما كله فوق رقم ما جرته شو اللي كبأت كان كرتيد فيتنام دولة مريكان وأكو شبطي وين جروستي وأنا كصبح علي 10 بدل ويكبرتين هي مرة بدل بدولة مريكان وسكوت درتي إني ليش القاعدة يعني طبعا طالبان هذا الباو السعوداء على ما كتاكتين طالبان هذه لا يكون مدرتان قدر إيه هذه لا يكون مركا أنت واحد اللي يسكت أيوه بابك وضع هذا الكي شيسك الشباب مثل حدها أركن نبي محمد بن مشركين ليش وصلح الحديبية قري وكل مقعابي فتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إيش ما تقدم لكن وناق من مغريو هشين ما هيو ما الله هيو حس خلد وهي لا لك عبسها ليش marka hadii ay imaato in la kala xukumayo mesela labadooda dawladda iyo al-shabaab la kala xukumayo labadooda keeba kula khaldan isleedahay kuwana khaldan horta dawlad madax banaan ma jirto wasaaraha Abdul Wali xafidahullah madaxweynaha xafidahullah walaalina al-shabaab iyagana soo kala xafidahumullah walaalina kulligood oo duceeyna ilaahu soo hanuuni bal kulligood ciidama Ugandaysa ayaa wardiya iyo Burundiis maalinta ugu maxtooyada argaysan hadii la gudmay ka dhacay hadii la gudmay oo bal darbiyada gadaashooda ay ku dhiibeen lacagtan ayaga qaadanaya askarta masaakiinta ay soo dhiibeen madaxweynuhu ma waayay 100 wiil oo askari oo hadii la gudmayo yani hatta jifadiisa hoosa oo wardiisa madaxweynuhu haduu dalkiisi uu asay cid wardiisa uu waayay sidee uu qaranka ummadda Soomaaliya u badbaadin karaa رئيس وزراء تبوي له جنرال هذه شفدي هدوه هاي أسرع بالوارد هدوه صار بالعيد كله إسكو أمريكان أنا مثلا إسكو أمريكان حاجة طاقة سوماليين هدوه إسكو أمريكان طبعا أنا يعني أمي صنبا يودينا سقى عن قرية كل سنة هي والله لما وقت يحوجه وحاولا كونا وحبيكو خلديين كونا وحبيكو خلديين نوال بان هاي صح لما يسترنا متشلو بتحاولوا شعبكم كمدها
طبعا سوق لو ognahay ra'iisul wasaaruhu yani sidoo kale shacab kamid ah marka hal ay saxo kama ay saxo waxyaalo badan oo marka dawladdu ay ku qaldan tahay tilmaamtay bal noo tilmaam waxyaalaha shabaab ay ku qaldan yihiin waxyaalaha kamid ah tusaalayaal shabaab waxyaalaha ay ku qaldan yihiin waxa kamid ah مثلا isqarxinta kale يعني هذه يعني مساجد مال الجمعة نم أسوه جان سمي صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع نكسوة البيع شقديسي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون مثلا يعني ويش أنا قد درست جنرال الله بمرية جنرال الشرب رحمه الله نودريوها إندعس وعود هذا يجري على شباب ودور يجري شو مثلا من مقتل يعني مختار كرجال لها يوتيوب يقول يعني رجل ود هذا يجري هذا ويستر وحاسوب إن رجال بيت كما صومري مركو حيكون خلدين إسقرحين تو خلد ولا تقتلوا أنفسكم نفت هذا الدليل هذه أي channel وقلي واي إسقرحين واي نقدني واي إسقرحين واي إلى شنقولة واي حسن دارو إسقرحين واي أبو مسؤول إسقرحين واي channel عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين نعم كل جوارنا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لكن أصحاب ترجع جوا وينو جاميالك أي السين بيجري بخن انتبه إنها لحياة طويلة بورت أحد يعني إني لا أجد ريح الجنة دون هل كاس بيجري اسكوسي دينجري واي هذا يروم طيوع كانوا واي يعني سو أفهيانك على شباب اسكوسي دين واي وأرجو إني أسوي لبكي جوجو إيه أروح يريد بالأركان أو جوجو عيسى هذا رجع علي عيالك يرك أيام من الوحيدين مساجدنا وماشي إلى يقول عليها أحب البقاع إلى الله ماشي إلى يقول عليها وي مركب مساجد إيو مارت قف سجود سن يا مبني ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق بلا مؤمنين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا جهنم كلها كفرا خالدا فيها وقواريا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يعني إلهي سبحانه وتعالى نفت إنا بدبادنا أي موطاق إنا وحقوينه ولبا إن وصلت الله فينا قادمها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا الناس لير قال يا مسلم يا منافق عدو البلير ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا مرك إنه عالم إنا بدبادنا أنا حتى قال إنا وصلت إلى سكد لما رسول كوحي لجنة عرفت دميلي قف كدل الذم معادي مستعمل مركب ولا ليال إلهي كعب سنة خلوات بنا أياتنا أين كل أين صحنا قف لما يستلم مجره كل ابن آدم خطاء وخير خطائين التوابون بني آدم لو واقف كو وقفنا وحوفي عن كو إنس صح نبى إذا عادي ورا السنة يعني بل إذا عادي مركب من الصحافة وأنا أم النقية ولا ليه إن سومالي channel أو خير كآد وفافية آد إلهي سبحانه وتعالى إذا كأجر سيو إذن كو كمان الله بديو برنامجين خير كآد قبل السنة الله إذن كأجر سيو وحلا ينقب هاي إذا عداها إذا ينوقه بصنه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا خبصة ما كتشوف وحرون أسيدها وحلقنا وحلا ماذا مركز خلطات كأيقلي على شباب يحاكم إذا ودادة كربا هرد ديلك وحران أو النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول إيش في النار لا بد المسلم كي واحد لي كي لدلي بالنار بقليا رسول الله كي واحد لي قرني ومن يقتل المؤمن المتعمد لكن كي لدلي كورا إنه كان حريصا على قتل صاحبه بالنبي أسمعوا عربين واحد له مركا وعلى ذلك إذا عديمة ورئيسانية وعلى يا مركا عبد الله بن الله الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر ما أنت واحد لي بقول إيه كنتم باندلني وحان داوعني لرب بقول أبوا داوعني وحان هذه لا يكيد ما يو أن قعنت كل ابني سقي تمن تكنيكا هذه لا يكيد قرتي ولا ورقني كي قال الله وذات قال الله يعني اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تنقي محمد ساري أو على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أركز صحبك بتشران وحكتشنا بتشران أنا قاعد دلني صدح بقول بندلني يا كنتم نحب بقولنا ما داوعنا شنو توم بشكتير أباطل يتضربت كذا كقبسن شنو توم نبغى جبني كان يوريالكم ماشي إمادة إما واحد دلنا يوام كان نبغى وداد مركا وداد كعين كاس كيما مركا حق وداد حقيل وأكل مركا يعني وداد ما نكاس وكله وانين أفمي شارع وانين درك علماء حيران وانين هديلا يكود ما يعني هديلا يكود ما أنحقي كتاجنين تحسن أمده إلينا كبد بنا أو كديرنا إلينا قبعيه وحويا ولا ليال qoys baa gablama haya hooyo iyo aabe laba wiil oo dhaleen baa labana xagga ku jiraan labana xagga ku jiraan anigoo hadda xilligan jooga sideen aan u garowsanayn khaladkayga iyo gafkayga iyo dambiga
dadka muslimiinta inuu dhaqan waa jaajuus ha kan waxaan u maleeynaa inuu mala lagu xukumo la takfiiriyo la ridda lagu sheego qoorta laga jaro yani waliba midi aan soo faysnayn lagu kirkiro ilaahay xayawaankiiba diinteena bartay wada qataltum fi ahsan qitla يعني marka waxyaalo badan baa jira hada dawladdiina waxyaalo badan baa jira lacagta baa la xadiyaa baa leeyahay ciidan ba mushaar helin bar maqlayna madaxweynihii baalka isqabqabsi baa arkayna maalin walba prime minister la ciidanaya arkayna waxa arkayna badda Soomaaliya oo shisheeye loo saxiixayaan arkayna yani Sheekh Shariif xilligiisa waa ogeydeen madaxweynuhu ma qan inta uu saxiixay waa in la baarlamaan waa in la helo way xisaabtan ma jiro baarlamaanku lacag buu ku xisaabtamaya yani 100,000 200,000